السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصدنا دركتان وقصة آدم رغبة وحنون بدن. قصدنا واحد كسابسن تاي وويلير ومالو والبكسو حبساما اسكولكا كاسو مركو كسو حبسان معلنكو وعوشكو قراعو كعنتيسا مالين كستا مركو ساس ليبو كساميو ايا ويلكي راوح عادستي مركو سوك لايبونو كعنتسو تاكتو maalintii dambe ayaa wuxuu go'aansaday macallinkii bal wiilka yar maalin walba soo habsaamaya bal inuu soo basaaso soo eego nolosha uu ku noolyahay xagga wadii kaasoo markaa u dhaqaaqay xagga wiilku deganaa waxaanu markaa meeshii markuu uu gaadhay waxa uu arkay waxa uu isagu maskaxdiisa ku haystay oo uu islahaa wiilkan yari wuxuu maalin walba u soo habsaamaa waxay ka tahay inay ka tahay saaqidnimo laakiinse waxa uu meesha la kulmay ama uu soo arkay ayaa waxay ku kaliftay inuu macallinkii halkii uu la qeyrado oo ilmo uu qabsado taasna wuxuu ku soo arkay hooyo kaliya oo haysata 2 carruur ah reerkaasina ay yihiin reer danyar ah labada carruur midba waqti ayuu galaa iskuulka ka kale marka uu soo dhameeyo ma awoodo hooyadani dhar labadoodaba ku filan marka dhar kaliya ayaa labada ubad ka dhaxeeya ay noloshoodina ay ilaahay inta uu siiyay ay ka noqotay laakiin hooyadaasi waxay la sugtaa ilmaha kale inta iskuulka kale ka soo noqonayo marka uu soo noqdana sida ugu dhaqso badan ayuu wiilka kale ku labistaa si uu uga gaadho iskuulkii kale sababtaasana ku kaliftay inuu wiilka yar ka soo habsaamo maalin walba iskuulka gabadhii sheekadana waxa uu markaa macallinka ku soo noqonayaa iskuulkii كيرانا سيدو سو عرراي اي waxa uu imanay iskuulka kaasoo soo taagay gacantiisii in waxa uu bartay inuu maalin walba garaaco oo uu shaw la dhaco macallinkii laakiin macallinku wuxuu kala horiyay inuu maartay ilmihii uu ku soo boodo oo maartay laabta ku qabto oo hina halka qabsaday macallimiinta Soomaaliyeed ee wadankii jooga ha u badnaadaan in ay ushu ka soo horeyso ubadkana ay ku barbaariyaan ul inay la dhacaan taasna maaha sida saxda ee ubadka in wax lagu baro laakiin waxay tahay ilmaha intaad usha la dhacayso waxa ka fiican inaad maskaxda u kobciso oo u sheegto laakiin saad ogaato xaaladdu ku noolyahay inuu awoodo dharka iyo kabaha uu soo qaadanayo iyo inay tahay inuu soo amaanaysanayo waa maxamed sharaf mar walba idin soo gudbiya waxa uu naftiisa la jeceliyay naftiinaba taasoo aynu ku badbaadino fi aakhiraba. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.